Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fara badan horay aan usoo baranay book development skills and integrated course for intermediate students loogu talagalay baan ku jirnaa lesson 28 baan akhrin doonaa maanta. Iyada casharo fara badan horay aan ugu soo faa'iideysanay step by step. Ardayda kala duwan meel walba adduunka ka joogaan step baan la wada socon doonaa waana very important taas. casharadii faraha badnaa ayaan ku jirnaa ardaydii kala duwaneed macalinka casharo fara badan hore ayaan usoo wada faa'iideysanay كليب يربان داونينا إذا عشرة هنا step عنو سي قادن دونا lesson 28 عرضي جعليت إن لو صادرة إكسسيو أيو كلا جوجا الدنيا دافيدة كلا دوان أو حجعليه إن مرة والبا أي أركان سيدا لودي سيو أما سيدا استور أو سمين كرتاديكا استور هدي لوسو ويديو شيكا إن أسكا سوقرتو أي كوات كاتو أنا لا سحرير دونتا المعلومات ديري وحنا لا سحرير دونتا سومالي سار أونلاين ترين استور كاس أرضي لوغو دياري لوغو ندرا وانا very important taas wixii macluumaad waxa la soo xiriiri doonta direct number ida casharo fara badan oo ayaan soo qaadanay ardayda qaybaha IT-ga casharadooda toos ay soo weydiinayaan macalinka iyo ardayda luqadda Englishka step by step baan uga faa'iideysan doonaa maanta waxaan arki doonaa lesson 28 iyo arday kala duwan ee halkaas casharada ka sii faa'iideysan doonaan arday Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogaan ardayda ku sugnayd Arizona, San Diego, North Carolina, South Carolina iyo ardayda New York City ku sugan ugu cusub ardayda London, Birmingham City ku sugan ardayda Norway, Finland, Sweden iyo Denmark ku sugan iyo ardayda kale Kenya iyo Djibouti ku sugan iyo ardayda dhamaan iyo main Soomaaliya ku sugan sida Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Galkacyo, Kismaayo, Beledweyne, Baydhabo iyo casharo fara badan oo ayaan usoo faa'iideysanay step by step lesson 28 book development skills and integrated course for intermediate students book kala advanced book fluency waa soo wadnaa asigana step by step baan uga wada faa'iideysan doonaa halka bookii practice and progress dhinacan ka wadno iyo bookii ahaa first ida casharo fara badan ardayda ay hore usoo faa'iideysteen lesson 28 buu ka bilaabanaya casharkeena abound to dear 20ka waa igu qaali ama giniga waa igu qaali gacaliye okay small boats dooniyaha yaryar loaded ay ku rarnaayeen dooniya yaryar loaded ay ku rarnaayeen with wares badeeco speed ayaa u cararay to a great liner markabkii weynaa speed bay ka timid speed baa leeyahay speed ayaa u orday weeye to great liner markabkii weynaa maraakiibta waaweyn liner baa loo yaqaana as she was entering markii ay gelaysay markabkaa shii lagu isticmaalayaa horeyna waa usoo sheegay ardayda buugga intermediaha iyo buugga advancega dhigataba shiihii bay ku isticmaalaan maraakiibta iyo diyaaradaha waaweyn okay sida dadka kale u isticmaalayaan she was entering markay gelaysay haba dakada before ka hor she had anchored intuusan dhigan browsinka the main raggi marka from the boats doonyaha ka imaanayay had climbed waxay fuuleen ama ay fanteen oo kale boat dusha ayay u dhaceen dusha markabkay fuuleen and decks sagxadihii were soon markiiba covered waxaa qariyay with colorful rugs rogo qurux badan oo midabo badan from Persia okay maanay Persia wadankan Iran la yiraahdo Persia silkiis xariir from India oo India ka imaanaysi coffee boats iyo weelal marka samaysan kirliyo marka samaysan oo kirliyada kafeega iyo bunka lagu karsado ayaa ka imaanaya and beautiful handmade silver iyo badeecad gacanta lagu sameeyay oo sida lacagta oo kale silver where it was ayaa halkaad ahayd where it was difficult waxaaba adkaanaysay kulahaa not to be tempted inaysan kusoo jiidan waxaaba kugu adkaanaysay inaysan kusoo jiidan badeecadahaani qasab bay kusoo jiidanayaan way kusoo jiidan doonaan qasab way macnaha it was difficult waxaa adkayd not to be tempted inaysan kusoo jiidan macnaha way kusoo jiidanaysaa badeecadaha markaa aragto many of tourists in badan oo dalxiisayaasha unbood ayaa dusha ku sugnaa markabka hadbigaan waxay bilaabeen burning inay baayactamaan
bargaining inay baayactamaan with the tradesmen nimankii ganacsatada la baayactamayeen, but laakiin I decide waxaa go-aan ku gaari not to pay inaana iibsan anything waxba until I had disembarked ilaa aan kasoo degaba. I had no sooner got off kamaba aan soo degin the ship markabkii dan halkii then markaasi I was silent markuu soo weeraray by a man who kaasoo wanted doonay to sell inuuga iibiyo me aniga diamond inuuga iibiyo diamond ring fargashi diamond inuuga iibiyo. I had no intention laakiin uma dhigin of paying inaan ka iibsado one mid xataa, but laakiin I could not conceal it maanan qarin karayn the fact xaqaa'iqa that I was impressed way raadaysay way soo jiidatay way raadaysay by isbaaxadii of the diamondada. Some of them qayb kamida whereas a big ayaa waaweynaa diamondkaasi as marble sida dhagaxa marmarkoo kale ah. The man ninkii marka went to great length to prove wuxuu iga dhaadhicin rabay that the diamondkaasi were real inuu dhab ahaa. As we were walking past the shop markaan dhaafayay dukaankiina he held a diamond firmly ayaa wuxuu ku qabtay firmly si aada ugu qabtay against the window daaqadii gaarigii aan saarnaa and made wuxuuna ku reebay a deep impression shucaaca qoto dheer ayuu ku reebay. Impression waa shucaaca, a deep impression shucaaca qoto dheer ayuu dhaladii muraayada ku reebay gaariga. macnaha diamondka muraayada ku jiiday way ku xoqay in the glass muraayada gaariga ayuu ku xoqay. It took me waxay ku qaadatay over half an hour nusu saac to get rid of him inaan kaga tago. Okay, the next man ninkii kale approached soo dhawaada me aniga was selling wuxuu iibinaya expensive pennies qiimaan qaali ah and watch saacado. I examined waxaan imtixaan ka qaaday ama aan tijaabiya one of the pennies mid kamid ah qalimaantii closely si qoto dheer it certainly waxaa hubaalahayd look at the muuqda genuine inuu ahaa mid saafiya. Genuine waa saafi marka la sheegay aan la qaldin oo kale. At the base of the gold cup genuine inuu ahaa mid saafiya. At the base of the gold cup the words korna waxaa kaga qornaa qalinkaasi kor waxaa kaga qornaa furka cup waxaa loo isticmaalayaa furka qalinka words erayo made in USA dalka Mareykanka lagu sameeyay ayaa ku qorneed had been neatly ayaa lagu xardhay had been neatly ayaa ku daabacneed inscribed lagu xardhay oo lagu qoray way. The man ninkii marka side wuxuu igu yiri wuxuu lahaa that ben qalinkaasi worth 10 inuu qiimo ahaan 10 pound ahaa, but laakiin as especially favor gaara iyadoo favor gaarna loo sameynayo he will let me way u saamaxaysay have it 8 inaan 8 ku qaato. I shook my head madaxiigaan ruuxay and held up a finger gacanna kor baan u taagay farna kor baan u taagay indicated anoo tusanaya that I was willing inaan doonayo to pay inaan ku iibsado a pound hal pound. Gesticulating wildly anoo si waxshiya faraha u taagayo. The man ninkii acted wuxuu ila macaamilay as if he found my over gudashadeydii ama bixintii aan bixinayay over out gudashadeydii Regius wuu ka gadooday way, but laakiin he eventually ugu dambeyntii reduced to price wuxuu qiimaha ka dhimay 3 pound to 3 pound oo kale. Shrinking my shoulders anoo garbaha diidma ka muujinayo anoo garbahayga diidma ka muujinayo I began ayaan bilaabay to walk away inaan isaga tago when markaas a moment laxdad kadib a moment later wax yar uun kadib he ran after wuu iga soo daba cararay me aniga and trust dabeena soo qalinkii kusoo gujinayo iisoo taagtaagayo into my hands gacmahayga though inkasto he kept throwing up his arms gacmaha igu soo dhiibayay in despite asigoo rajabela
he readily diyaar buu u ahaa accept inuu ogolaaday the pound halkii pound I give him aan siiyey I felt waxaan dareemay special si qala pleasure farxad baan dareemay with my wonderful bargain gorgortankayga ama baayactankayga quruxda badnaa until ilaa I got back and dib uga noqdo to the ship markabka no matter how hard I tried isku dayaygii I was impossible waa ii suuro gashay to feel the beautiful pen inaan qalinkan quruxda badan with ink imay suuro galin weeye impossible to feel this beautiful pen qalinkan inaan weli ku shubo with ink qad and this day ilaa iyo maantada tanna has never written a single word xataa hal eray kumaan qorin vocabulary muxuu noqonayaa explain sharax the meaning is macnaha of the following adoo raacaya words erayada and phrase weeraha as they are used aan kusoo isticmaalnay in the passageka loaded with words badeecooyin ku rarnaayeen linerna waxaa loo isticmaalayaa big ship inta kale adaa kasoo shaqeynayo wana very important taas ardaydii kala duwaneed casharadii buugii development skills and integrate course for intermediate students halkaasana sii marayna waana very important step by step aan uga wada faa'iidaysan doonaa iyadoo casharo fara badanna hore aan usoo qaadanay dhammaan ardayda Somali Star Online Training ardayda casharada ICT-gana toos ayaa casharadooda la socon doonaa sidaa darteed waa injineer maxamed Abdullahi Lafiya manallah wassalaamu calaykum